waxaan rabaa inaan idinla wadaago sirta guusha ganacsi kasta ka dambaysa. waa halka qodob ee ugu muhiimsan insha Allah oo sirta ah. arintan yani runtii aan idinla wadaagay fakradeyda ma ahan oo kaliya yani wax fakradeyda ma aha laakiin waxa la weydiiyay dad kala duwan oo billionaires oo maaragtay CEO iyo waaweyn oo adduunka meel sare ka gaaray specifically markii laga hadlayo arrimaha ganacsiga especially markii laga hadlayo arrimaha ganacsiga marka ma ahan wuxuu fakradeyda insha Allah marka waxaan rajayn doonaa muuqaalka inuu noqon doono mid informative أخير شرفت لما كسر وهذا ميل كستاج جوكتان وجنر أبيض بل سينتين نوجد من فافاهنتا وحنا أركادتك وجبضان إذا وذا المقالة ذين الناس نقصوا بيرين فضلا مركب مقالك لا يجري سيدو كلنا هدي أدنى كرسب تهاي بوجا فلو كلفو هذا يوتيوب كذا ونسين سبسكرايب أد بنك أجمع دعني وقت كذا قارئة بدل محل يا باني نسن يعني أقوم بدن إيجا ماركت بدل محل يا باني نسن سيفي عن معناها إيجا أقون وإسلهان businesskii ganacsiga waxa uga hadlayaan laakiin runtii yani businesska markii laga tagay IT-ga yani master ba ila master degree baan ka qaatay hal abuur badan oo ganacsiga runtii waan ka qayb qaatay kuwa aan ka mid noqday kuwa fashilmay kuwa guuleystay kuwa dhexdhexaad iska noqday intaba marka muddo badan waa ku dhex jiray waxyaabaha la xiriira hal abuurka ganacsiga marka insha Allah taas waa sidaas maartay qofkaan maartay background-kayga aan garanayn inta markaynu ka tagno waxaan rabaa marka inaan insha Allah qodobka marka uu yimaado oo ah waa maxay sirta ka dambaysa guusha ama waa maxay sirta ka dambaysa guusha ganacsi kasta yani ka dambaysa marka su'aashan isla sidaas oo baa loo weydiiyay dad badan oo billionaires la weydiiyay billionaires CEO ya la weydiiyay CEO wax laga wada chief executive officer yani qof shirkadda meesha ugu sarreysa ka jooga oo kale ayaa la weydiiyay maareeyaal oo kale dhamaantoodna su'aasha halka wax hadii la weydiiyo marka hadii waxyaabo badan la dhaw waxyaabo badan baa la qori karaa laakiin halka wax waa maxay halka wax ugu muhiimsan waa maxay meesha ku dhimanayso shirkadaba ama halka ugu oday bay jireen Soomaalida marka halkaas wax kala ma ahan waxa weeye wax loo yaqaano diirad saarid marka saa kugu sheegay wax laga yaabaa wax simple ku sheegay laakiin runtii arrintan si sahlan ma aha yani inaad focus samaysid oo diirad saarid samaysid yani wax sahlan ma aha يعني مركز ساكا شيء واحد غير باينات يعني ما أنت جمع غشيد أما يوتيوب كداوت فيسبوك كداوت يعني واحد وين ميل وين كل معها واحد غير باينات يعني أسهلة تد ما حس وقت نقدر مني أسوي سكت لكن رنتي ودوغان دون تاع ما كم إذا هديت كان أسوي كرتي عم بيسنس كرتي ودوغان إن أرنت الوكالة تجي أنت هاي والله يفضل arkaysayo maartay qofku markuu de waxa muddo badan ku dhex jiro 8 sano 15 sano yani xaqiiqdu soo ogaanaya qofku markuu intuu dhalinyarada yahay ama uusan waxaan khibrad u lahayn uusan wax khibrada iyo experience hore u lahayn waxa laga waxyaabaha qaybtooda inuu sahlado marka sax leeyahay waxa way focus ku marka maxaa laga wadaa diirada saarista waxa laga wadaa qofka bini aadanka hadduu shay diirada saaro oo shaygaas 100% focuskiisa saaro waxa way shaygaas laba midba way noqonaysaa ama shaygaas uu ka gungaarin oo yani ugu dambeyn u shaqeyn ama shay waxa weeye waxa uu shaqeyn u noqonaya laakiin hadaadan focus samayn oo hadba shay ku jirtid kama ku jirtaa yani shayal kala duwan oo kale ayaad ku dhex jirtaa tan marka waxa dhacaysa awooddaadu ma qaybsanta hal qof baad tahay in adigu hadda qof milyaneer oo ganacsiye maal gashanayo dad shaqalaysanaya ma tiid badana laakiin adiga waxaan ka hadlayno waxa weeye qof waxa tahay wax bilaabaya xitaa hadda tahay qof maal qabeena still waxa u baahan tahay hadba project-ga ay shaqeynaysa inaad focus-ka aad u saartid ayaad u baahan tahay marka focus-ku marka waa arrin aad muhiim u ah waxaan rabaa wax yar inaan idinkaga sheego hadda sheeko ka hor yani dhacday oo yani nin hindi ah jiray ninkii hindiga sheekada si fiican ma xasuusta details laakiin muhiimadeedan ku sheegaya yani ninka waxa dhacday meel magaalo ah iyo tuulo ah oo ku noolaa oo reerkiisa dadkiisu deganaayeen kadib tuuladii ayaa buur weyn baa ku geedaaman tuulada macna meesha uu degan yahay ama degmadu degan yahay buur baa ku geedaaman buurta marka wixii ka sheeya ayaa laamigii caadiga ah iyo wadooyin kale iyo connectionski kale iyo adduunka kale ku xirmato wadanka inta kale ku xirmato halkaasay macna marka waxa dhib ahayd sidaas marka therefore marka boqolaal sano ka soo wareegatay yani tuuladiisaas ay rab ku aan ay weligeed ahayd oo gaari dameer iyo macnaha faras iyo wax la mid ah lagu yimaado si kale looga iman karo waxa garanaysa magaaladii yani gaari faras iyo wax la mid ah gaari dameer dib loogu adeegayo de magaalo weyn ma noqon karto horumar weyn gaari karta ma noqon karto waqtiga hadda la joogo macquul waayadii hore oo kale marka ninka odayga wuxuu sameeyay nin weyn oo da' weeye wuxuu soo qaatay gudin faas oo waxa maarto wuxuu garaaci lahaa dubihiisii wixii soo qaatay subaxdii dambe wuxuu aaday buurtii ku aadanayd laamiga waa buur weeye ma aha waxa kala hadlay dhagax ma aha meel yaro ma aha tuuna ma aha yani tuur yar ma aha
وبور عادية ماشي بسوء عادي كدب وبلابي كان إنه ما عرفتي قراعه هو تبيه بور تبعني مالك بنايستو ولامي وين كنت تبعني مركا عبارة الله سعودة كدب على تجاه فدتكو يكون قصلان معناها وين لا يابان واحد لوجيكا يعني بور قف إنه كل جبين كرو واحد لوجيكا ومسكح هذا قلي كرميها ومايا ninkan subaxdii wuu noqdaa adoo habeen meeshii magaalada soo seexdaa subaxdii buu hadana ku soo jarmaadaa ma garad markuu intaas dhowr sano uu waday baa dadkii arkeen arrintan ninka inay serious ka tahay oo ay fiican tahay focuskiina uu sameeyo wax dhaqaajinayo kadib baa dadkii oo dhan ku daydeen hadba kuwa la soo jarmaada hadba kuwa yaani sidoo u wadeen muddo kadib buurtii oo dhan waa la kala jabiyay yaani laamigii dhinaca kale u gudbeen oo ahaa resource ka xigay ama khayraadkii magaaladii kale deegaanadii kale badiyay hadii jiraan wixii kale oo dhan marka can you imagine macnaha buur in qof kale jabin karo yani wax loo jiga ma aha marka fikirtid caadiyan u fikirtid laakiin runtii focus dartii wax walba lagu gaari karaa haddaad wax weeye waxyaabahan tirada badan aad ku dhex jirtid nolosha intaa faraha ka qaadid shay aad u goodid aad isleedahay horta marka hore shayga dooro yani dee waxa isleedahay uu ku anfacaya akhriya adduunba horta marka hore dooro kadib shaygaas haddaad u goodid oo ka shaqaysid wax weyn baad gaari kartaa wax weyn oo aad u weyn ayaad gaari kartaa marka sidaas weeye insha Allah waxaan rajaynayaa in muuqaalkaasi ku ahaa mid informative ah oo injineer Abiyad. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.